halkudhagyada ogaal reeriya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacarka qaraadhahay. gudoomiyaha odayaasha beelaha hawiye ayaa yiri meelaha Kismaayo laga dhibayo waxaa ka mid ah kililka shanaad Soomaali sijuu iyo dad xeebaha fogfog ka yimid. gudoomiyaha odayaasha beelaha hawiye Maxamed Xasan Xaad oo ka hadlay arrimaha Kismaayo iyo maamul samayntooda ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ay ayagu u yaqaanaan meel aan cid gooniye sheegan karin, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. magaalada Kismaayo runtii waxay soo martay marxalad kala duwan ilaa 22 sano oo la soo dhaafay. intaasuna waxay u noqon kartaa ummadda fariin u noqon kartaa. marka waxaan qiyaanaa meel Kismaayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa qolo sheega kartaa oo iyadu baawur ku sheega kartaa ma jirto. maxaa yeelay bay jirto 22 sano ayay ku soo caanbixinay way qashaleeyeen dadka ka dhaxsay taas waa la waayay. marka Kismaayo waxaan u naqaanaa dadka Soomaaliyeed ay u yaqaaniin aksarkooda ciidan u jeed dagaal lahayn meel Soomaali ka dhaxaysa oo halbowle ah oo magaalooyinka mataqaana hodanka ah Soomaaliyeed kamid ah dadka Soomaaliyeed ay u sameeyeen intooda badan dawladuna ay daaqka ka hayso midida oo ayada baawrkaas u hoos yimaado. taas rabna haddii taas la waayana haddii kolba waa la kala qabsan jiray qola maanta qabsanay qolna bari ka qabsanay waa sidii ahaa jirtay. annagu marka na farax gelinay Kismaayo inay maaragtay noqoto meel shay ka taliyo na farax gelinay qola inay inta ayagu si gaar ah u tashadaan ay isku dayaan inay boobaan oo xaq darro ku qaataan waxaysan lahayn labaduba na farax gelinay. marka waxaan qiyaanaa meel Kismaayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa qolo sheega kartaa oo iyadu baawur ku sheega kartaa ma jirto. maxaa yeelay bay jirto 22 sano ayay ku soo caanbixinay way qashaleeyeen dadka ka dhaxsay taas waa la waayay. wuxuu intaas ku daray meelaha laga dhibayo Kismaayo inay ka mid yihiin kililka shanaad Soomaali loo yaqaan Soomaali sijuu ee Kenya oo uu ula jeedo NFD iyo dad ka yimid xeebaha fogfog oo uu ula jeedo Puntland, waxaana ka mid ah hadaladiisii. dawladdu waxa laga rabaa wixii dawladdu laha jirta laga rabaa baabka dawladda laga rabaa waxa laga rabaa meel aan dawladda ka jirin runtii kama jiri karto muxuu ahay shaqo wanaagsan kama iman karto. dadka degan meesha horaba u deganayeen hadday maamul isa karaan horay u dhisan lahayd. marka aniga waxaan qabaa dawladduna inay ayadu u qabato majaraha u qaybiso dadka meesha u degan oo deegaanka iskale qolo walba siday u lahaayeen ayagoo qolo miisaankooda la siinay ama wix ay lahaayeen aan laga xaqirin ayadu inay lahaato muxuu ahay maamul samaynta maqaamkii dawladnimo iyo mataqaanaa taladii iyo ayada inay hoos timaad. laakiin kuwa wax dhisanaya oo xisaabtamaya oo qolo walba inta ay lahayd ay usoo diyaar garoobay inay noqdaan dadka deegaanka. waxaa kaloo ku talinaynaa in mar walba faragelinta laga daayo oo ciddaan mataqaanaa Kismaayo horay wuxuu lahayn oo meelo kale kiimo ana aaminsanaa meelaha laga dhibaa Kismaayo inay ka mid yihiin giilka shanaad oo kale inay ka mid yihiin Soomaalida mataqaanaa sujuuda loo yaqaano Kenyaan to kaleeto qolo nagaba xagayso meelo kale ka imado badahaas xeebahaas ka imaanay waxaasoo dhan waxaad moodanaysan dowr ku lahayn Kismaayo ay tahay dhulboob. marka waxaasoo dhan waxaan rabnaa in laga daayo. marka waxaan ku talinaynaa dadka deegaanka ayaguna way siiqaanin ummaduna waa taqaanaa dawladduna kuma war la'ah. marka dawladduna dowrkeedii waa taqaanaa waa inay qabsataa dadka deegaankana waa in loogu sano maamul fadhiyo cadaalad ku fadhiyo sal ballaaran oo nabadda xigsan kara in halkaas laga sameeyo ayaan anagu ku talinaynaa. haddii taas la waayaan wixii wanaagsan waa la waayay. hadalka gudoomiyaha odayaasha beelaha hawiye Maxamed Xasan Xaad waxaad ka dheehan kartaa damaca dhulboobka ku salaysan ee weli ka guuxaya shakhsiyaadka. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dawaca meeshay macal uga baratay bay macalul ugu dhimataa. nin baadil iyo dhulboob ku najaxay 22 sano way adag tahay in laga dhaadhiciyo waxaaga ku ekow iyo nidaam dawladnimo raac waana dhibka ugu weyn ee haysta dadka Muqdisho.
lagamana yaabo inay ka waantoobaan dhaqankaas xataa haddii soomaalida inteeda kale ay isku tashato maxaa yeelay dad aaminsan in taariikhdu ka soo bilaabatay 1991 meelihii ay xoogga ku qabsadeenna aaminsan inay ayagu iska leeyihiin way adag tahay in cadaaladda la fahamsiiyo oo nidaam loo sameeyo waxay u baahan yihiin dadka muqdisho haysta in la fahamsiiyo inay gartaan waxa ayagu ay leeyihiin iyo waxa dadka kale leeyahay iskana soo celiyaan wax kasta oo ay baadil ku haystaan dhul ama hanti dadweyne degmo ama gobol aysan lahayn intaba waxaad naga dhegaysanaysaan ogaal reeriyo mawjada dherarkeedu yahay 88.9 FM Oh